wadalkii ay soo xukumayeen ummadii ay soo xukumayeen iyo diinteedii bay raamarlaad inay dumiyeen dadkan dad caqliba ma haba برهنا اللي يلاده هل مدة حرارة هذا البريز كأت كرستاد وميان كلوحنا وبس منطقة كيف كلو صعدة بعد كاسين تاجنا هاي يا باقي جاي وشيء ليس ماشي مدنان يو عشي شرف لقسيلها بالوتوين يو زمن الوريد وهذا دتك أو ماشي توج ودت مراح سياسي أو معنا ودنك وسوء الجميع واحد قبتي ماشي مدنان يو عشي شرف لقسيلها بالوتوين يو زمن الوريد مفهوم أنا شعب أنا وحياة وأوجدنا مفهوم هدي أنا كباور سريع كأوت سريع دجرتني حاول حتى شغل عندي لا ودنك هذا مسؤول كه هذا كمامله دتك جواي شلي أديك أنا معارض سوء مفهوم مدعويني كوري محمد عبد الله فرماد فيلدو كيجرواي مفهوم فيلدو كصاب عدري مركا أديك شلي مسا كسوء أساس متي معارضة مفهوم هذا المعارض كي معنا ماتنا مسا كسوء دويلدو لفدي سلهدو مدي معنا اسكو ككلد أنا كل في جسمه مركا عادي هذا عم بيعرلنا اوكي سبتيجو بنا بحد بعدونا دولد وكسور جدا اريكا سواركا والله دولد معنا وعندنا برامج كاس ومعنا مظاهرات كاس ومعنا مدحده وحيد هذا مظاهرات نمدت عن سمينا دائما مظاهرات معنا خرم جمس سومال جمس مو صعدان مركا قفك معنا شعورتي سنو موجيو ولو قسميه وهذا مدعوينا وعندنا ضد gurigood oo jiifnaa dhana guriga dunis meel jiiftaan iyo meel ku weeyaan ma siinin marka qofka oo shucuurtiisa inuu muujiyo oo ku qasban yahay marka madaxweyne xasan sheekh waxaa la baraan baxas inay gelis isku day hadii aad dhaadid ana ka baawur sareyne waqtigaaga kulay waa dhamaana aniga shacab hadanahay inaa shucuurteena muujino oo ku qasbanahay shalay adaa guriyaasha dadka masaakiinta dadaan ku cabaday saad shalay waxaan arkay oday masaakiina 80 iyo wax la jira cagaaf lagu qaaday macala gurigiis marka muwaadin maamiya muwaadin waay wadanku xaq u leeyahay hadii dhulka macnaha waxa loo baahan yahay dawladda hadii macnaha u baahan tahay dawladda xaq u leedahay waxa loo baahan yahay in macnaha masaakiintan dhulku weeyaan meel inay dejiso marka adii nin qeyr soo wada matid marka madaxweyne waxaan ilaha ummadda isku dhibay waa ka ummadan waxa damiir qaadanayeen dadnimada ummadda Soomaaliyeed aan madaxeeda galayeen ay sameeyeen wadalkii ay soo xukumayeen ummadii ay soo xukumayeen iyo diinteedii bay raamarlaad inay dumiyeen dadkan dad caqliba ma haba ma xisaabtameen mucaarad haday yihiin mucaaradka oo musaafirtan dalka taas sheekh baa dawladka madaxweyne ka dawlad baa ka dhisan ma garatay dadkan waxa hadda ay sameeyeen qof tirada soo waa kuwii dalka soo xukumay waxa aqligal ma aha dabir bani'aadam geli karana ma aha ma garatay anu qalad baan u arkaa aad iyo aad u xun marka dadnimadoodii iyo damiirkooda ku laabtaan haday mucaarid yihiin dawladdu waa hadal hala galaan aruntaasaan kaga baxaya banaanbaxa oo qaada weeye oo dawladda Soomaaliyeed lagu arqalaynaya anu naftii banaanbaxa ka soo horjeeda waka tilaabo ma artay qaadayaan tilaabo ugu filan dalka waa dalka ay soo xukumayeen iyo dadka ay soo xukumayaan ayuma rabaan inay ku tuutaan wadada dawladda ka soo horjeeda doonaya hogaamiye kooxad wadalka madaxweyne ka soo noqdeen oo ra'iisul wasaaraha ka soo noqdeen ummadii ay soo xukumayeen ay hadda ma doonayaan inay dib u burburiyaan dawladdan ma dadkaas waka dibaatada ka dhalato weerarada ayaga ka mas'uuliya taas وأنا شان هذا القلد ويا قلد لغو كعي ويا قلد أمني لغو كعي ويا قلد سومالي لغو كعي ويا قلد دولة نمد لغو كعي ويا معارض كشفال كعي شان كوك عين وفل مرنا عن صورة قلاهين أرهن دولة أن كترجمين وحيود رغمين سيدي كوي سجاش كدولة مركي بربرتني مكي هو جامي كحيد كها أيود رغمين شيلان سلم إذا تد مسؤولية أنت الله يسوق طيب مدحويني يالصوها رئيس الوزراء يالها إن يسلك بوليس أنت تجان أيوه تجنا كوطا أي ورران ولنا أي قيل سير في هذه الأيام taasi waxa la dhigi karaa wax kale ka dhax qaydinaya waxa maaragtay Soomaalida qusaya ma waxa la yahay mucaaradku shalay waxay sameeyeen wixii dhacay ayada mas'uuliyadooda qaadaya wixii hadarkii ay sameeyaan mas'uuliyadooda ay qaadaya madaxweyne xasan sheekh ayaga shalay soo doortay ayaga la safnaa waqtigiisana sanad baa ka dhiman maalintii waqtigiisu uu dhamaado la xisaabtanka iyo in wax lagu dhaliilaha bilaabato laakiin maanta oo sanad dhiman tahay in dawladda la weeraro oo sharciga la weeraro oo amniga khalqal la geliyo برهنا اللي يلاده هل مدة حرارة
adeer bariiska aad karsato adu miyaan kula cunaa oo basmatiga iyo mukaybka kula socdo bacadkaasaan taagnahay yaad aqligaa u sheegaysaa adeer annagu jaraajara nagu fuuli maysid soomaalida waa aqlaysatay kabala'aan baan nahay waa daalnay ree hebel iyo ina hebel iyo maanta waan ognaa annagu cidda dabada inka taagan iyo waxaad u shaqaynaysaan iyo siaad u socotaan adeertaasi wax ii suuradgelaya maahan magaalada rabshada ka daayaan leeyahay war cad weeye magaalada rabshada ka daaya dowladda soomaaliyeedna waxay ku eedaysan tahay in dad amniga ka baxsan hub intaa la eg oo khalqal amniga lagu gelin karaya ay wataan oo magaalada dhex joogaan dowladda ku eedaysan dowladda soomaaliya waxaan faraynaa in ciidamada amniga waxaan ahayn oo qori ama bastoolad ku haysan kara aysan jirin dadka Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid siyaasi iyo shacabna amnigooda ayaga looga baahan yahay ciddii dambe ee magaalada qori ka rida ama ku qaadata dawladda mas'uuliyadeeda qaadaysa hay'adaha amniga waxaan leeyahay shacab Muqdisho magaalada Muqdisho cid qori ku qaadan karta oo laamaha amniga ahayn ma jirto dambi weeye ciddii qori qaadata oo laamaha amniga aan ka tirsaneen oo Muqdisho ka qaadata qori dawladda Soomaaliya waxaan leenahay la xisaabtanta cid kasta oo dambiga noocaas gasha waayo ما ماشي ما الفوضى مقالة عاصمة هدوي إن شاء الله نولسه كفاية قالة الناس عايش عايزة قالة واحد كلفها يا واحد نقله إن بوليس Soomaaliya oo sharciga u taagan oo heegan ku jiro naftooda qalqay la geliyo dhalinyaro kale oo Soomaaliya naftooda qalqay la geliyo war waxaas wax loo qaatayna ma ahan ka fiirsadan la yaadeeraya haddaad ka fiirsan waydana waa la xisaabtamaya hadday dawladda la xisaabtan waydana shacabka la xisaabtamaya waxaan leeyahay dadka mudaharaadka looga baaqay adeero mudaharaadka maanta lagu baaqay mid adil lagu danaynaya ma mid shacabka Soomaaliyeed loogu danaynaya ma ahan waa nin asaga wax u karsan yihiin oo wax bislaysanaya taasi ninkii yeela oo amarka dawladda iyo awaamirta jibiyo oo shacabka Soomaaliyeed kamid ah oo bari mudaharaadka iyo howlaha noocaas la sheegayo yeelo haduu dhinto ilaahay uma raxmadaan leen annagu haddaan u sii ducaynayna Allah kuma raxmadaan leen marka waxaan leeyahay dawladda amarkeeda hal la fuliyo amarka gudoomiyaha hal la qaato amnigana dawladda mas'uul ka ah mucaaradka ayada mas'uul ka ah muxaafidna ayada mas'uul ka ah waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed cid kasta oo qori ku qaadato oo dawladda heer magaalada Muqdisho inay dambiile cad tahay laakiin nimanka mucaaradka waa qaldan yihiin hadday rabaan inay beeshooda ka hadlaan jasiira ka hadlaan dawladda dhale aan xaqay u leeyihiin laakiin inay tagaan ay wardhigle tagaan saldhig boolis waa ayaga dacwo ma yahay wardhigle ma ka doonay qalad waa arintaas waa ku qaldan yihiin ku dhintana ayagaaba jeebkooda ta ayaga laga rabaa inay yani bagdhow ka bixiyaan sababtoo ayaga qaldan ayaga tagay meesha macluumaadya tagay taliyaha booliska waa la xiray nimankii odaga jiideen dhanka booliska waa ka jawaabeen laakiin nimanka inay meeshaas tagaan attention ka raadiyaan badhow adag waqtigiisa waqti badan ka dhiman inay amniga naga qasamaan banaabax dhici kara sidii ma jiro sababtoo amni waaye waxay ka banaabaxayaan hotelka Sirle waa magaalada baqasi karaan dawladdan waxaa laga rabaa inay gacan bir ku qabato maadaama waqtigeeda wax ka dhimayn tan koowaad horta muungaab arrin dastuuri waa shacabka way banaan bixi karaan banaan nabadeed hadduu jiro mucaaradkuna wuu ku baaqi karaa hadday dadka shacabka ay raacayaanna waa lasoo wada banaan baxaa sabti wixii ka dhacaya ka dhacaana arrinta kaleeto aa u imaado taliska booliiska waxaa arkaa beryahan dambe siyaasadda inay ku lifaaqmeen war cad waay taas siyaasadday ku lifaaqmeen midda kaleeto mucaaradkana waxay sheegeen inay u damqanayeen ninka odayga ahaa ee dhulka lagu jiiday Siinay oo xanuunsana sida iyaga sheegeen halkaasna iskorimaad inuu ka dhaco iskorimaadkaasina qof lagu galaafsaday naftiisa yani baabuurka xasan alkhayre saban la raacsiyo sida bixinada baa ku maqlayaan marka ana ka fikir ahaan shacab ahaan horta mucaaradkana waxa waaye waa loo baahan yahay dawladdu inuu cadaadiyo dawladdan waxaa laga rabaa iyadana mucaaradka inaysan yani waxay soo jeediyaan ee qaataana la rabaa horta dhibaatadii shalay arbishaadi ka dhacay saldhiga wax fiican ee mucaaradka sameeyeen maaha teeda kale meesha markay leeyihiin waxa ku qabsanaynaa shir jihaad ku qabsanayna macnaha guri ay leeyihiin degan yihiin guri ka soo bixin guri kale u socdeen ay degan yihiin hotel jaziira ma umalay macnaha saldhiga inay yiraahdaan waa baxayna saldhiga wax ku soo qabsanayna shir jihaad wallahi waxa uu aaminsanahay qalad weyn ay sameeyeen wixii ku dhaca kulay macnaha ma fiicneen xogaa ay kala tirkay dawladda inay ka baaqsatay laakiin waa qalad ay ayaka hormuud ay u noqdeen Soomaa aniga marka waxaan leeyahay waa ku qaldanaayeen kulli waxyaalaas wax ka bacdina ha ka fiirsadaan aan taaganahay aniga sababtoo neecaaw wadankan soo baxaysa neecaawd ay ka jeerin dadka neecaaw soo baxaysa ay ka jeerin teeda kale mudaharaadka waxyaalaha ay sheegaan kulli si maamulku waxa ka hadlay gobolka ka hadlay kulli hadii xataa loo fasaxata ma aaminsan yani afar qof iyo saddex qof
in ay u imaanay xataa ma aansanin ani ahaan teeda kale waxaan maqlaa Sheekh Shariif waxaa la dhahay macluumaad anaa soo abaabiyo waxa ku soo abaabiyey iyo waxyaalaha u sameeyey waagaas hogaamiye kooxeedaad ilaa hadda hogaamiye kooxeednimadii yaa rabtaa waddankan hore u tegey dhibaato iyo qoryaa heesaa iyo waddankan macnaha ma soconayso أنا dadkan hore u socdaa macluumaadina hadda waa nin mas'uul oo meel maamul meel ka tahay oo u taliyo waaye wixii aan ku abaabaysa hadii hogaamiye kooxeednimadu waadi ay tahan igu wada deetaane wax suurtagalay ma niyow weerarka shala dhacay waa ka xunna waxaan u aragnaa qalad dawladda iyo mucaaradka ka dhaca qaladka marka hore waxaa galay dadka mucaaradka oo meesha si qaldan ku tagay ay ku xiriir samaysan dawladdina qaladkooda qalad kale ku saxday oo xabada laga horkeenay marka waxaan u arkaa laba qalad oo kuwana qalad galeen kuwana qalad ugu jawaabeen seerna qalad lagu jawaabay dhibaato la keenay maana faa'iido ka imaanayso wallahi banaanbax nabadeed hadduu yahay waa soo dhaweynaynaa uusan dhibaato iyo mucaarad iyo wax dhib lagu sameeyo ma ahayn hadduu mucaarad nabadeed yahay qofka muwaadinka inay banaanbaxdo si nabada ku banaanbaxdo amnigeeda la ilaaliyo aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynaynaa wallahi qaladkii sameeyeen waa inay dib loo saxo dadkii dhintana laga tacsiyeeyo eelkii dhalay iyo qaraabadoodana magdhow la siiyo raaligelin laga bixiyo dadka shacabka dhibaatadu gaartana raaligelin looga sameeyo dadkii ku dhaawacmana caafimaadkooda iyo dhibkooda la tacaalo intaasaan rajaynaynaa sababtoo ah dadkaanu dhibaatay soo mareen Sheekh Shariif uu ogayaa waddanka meesha ka keenay inuu dib u celinaayo oo dagaal sameynaayo oo dhib kale la sii sameynaayo ma baleynaayo waxaan rajaynaynaa marka in qaladkii dhac la sixi doono nabad laga shaqayn doono labada madaxweyne kii hore iyo kii haddaba ay wanaag iskala shaqayn doonaan nabadna laga shaqayn doonaan rajaynaynaa insha Allah qaladkaana waa soo laabta dhowr mar u dhacay inuusan dib u soo laaban doonin oo lagu naqad doonaan rajaynaynaa insha Allah